tilmaam academy. بسم الله الرحمن الرحيم. kusoo dhawaada koorskeena imtixaanaha ahaa ee English Vocabulary in Use. Today waxaan rabnaa inaan qaadano lesson 28 oo aan ku baran doono wax la xiriira weather, cimilada ayaan baran doonaa markaa. Bal marka hore aan isla fiirino types of weather. cimilada sidee la rabo in loo sheego noocyada: roob, qorax, dabeyl, gugac, waxyaabahaas oo kale. bal marka hore aan isla dhegeysano qaybtan hore. A. Types of weather. Sun, Sun, rain, rain, cloud, cloud, snow, snow, fog, fog, wind, wind, thunder, thunder, lightning, lightning. Okay, sida sawirada ka fahmaysaan, sun qoraxda, rain roobka, cloud waa daruurta, snow baraf, fog waa ceeryaamo waaye, wind dabeyl, thunder like gugac camal waaye, lightning like biriq camal waaye. marka waxay micno noo samayn doonaan qeybaha dambe adjectives and verbs. kuwa hadda aan baranay markaan ka dhigno adjectives ayay micno samaynayaan. bal hamar isla dhegeysano section B. B. Adjectives and verbs. Noun. Sun. Sun, Adjective. Sunny. sunny, Rain. rain, Rainy. rainy, Wind. wind, Windy. windy, Cloud. cloud, Cloudy. cloudy, Snow. snow, Snowy. snowy, Fog. fog, Foggy. foggy, Thunder. thunder, Thundery. thundery, Lightning. lightning. Okay, No adjective. no adjectives. Okay, bal ila fiiri. Sun waa noun. Adjective keed maxay noqonaysaa? Sunny. maanta waa maalin qorax waaye, waa maalin qoraxeed. It's a sunny day adaysaa. Rain waa roob. see u dhihi kartaa marka maalin roobaad waaye, see u dhihaysaa? waxaa dhihaysaa it's a rainy day. Wind dabeel, waxaa dhihaysaa maanta dabeel ayaa jirta, see u dhihaysaa it's a kandaba isticmaalaysaa marka waxaa dhihaysaa it's a windy day. Cloud, today is a cloudy. cirka maanta marka aad fiirisid cloudy waaye, cirka dhan daruur ayaa soo xirtay. It's snowy, maanta waa maalin baraf. It's a foggy, maanta ceeryaamo ayaa jirto. It's a thundery, maanta gugac zaa'id ayaa yeerayo kale. So lighten ayada ma lahan adjective. Other useful weather words. bal ereyadan muhiimka ayada in la fiiriyay marka hore. C. Other useful weather words. It is very hot in Mexico. It is often 45 degrees there in summer. It is very cold in the Arctic. It is often minus 50 degrees there. It can be very wet in London. Carry an umbrella when you go sightseeing there. It is very dry in the Sahara. It doesn't often rain there. A hurricane is a very strong wind. A storm is when there is a strong wind and rain together. A thunderstorm is when there is thunder, lightning, rain, and sometimes wind together. Alright. Other useful weather words. ereyada muhiim waaye. It's very hot in Mexico. Mexico aad ayay u kulushahay. Is often 45 degrees. inta badan ma ka degataba 45 degrees. 45 ma ka degato. Soomaaliya meesha ay badanaa ay tagto 30 wuxuu ku dhahayaa meeshaan 45 degrees camal waaye markii la gaaro summerka xilligaas. It's a very cold in Arctic. markii meeshaas la joogo Arctic waa meel aad u qabow oo barafka ah marka la joogo. waa aad ay u qabowdahay. inta badan waxay gaartaa it's often minus 50 degrees there ayay gaartaa meeshaas.
waa dhul oo wada baraf waa bes. It can be very wet in London. aad ayay u qoyan tahay, roob zaa'id iska daaya laga wadaa markaas oo kale. Carry an umbrella. Hore u soo qaado dallad when you go sightseeing there. Markii xoogaa meesha aad soo wareegisid oo aragtay inaad magaalada soo fiirisid, you have to carry an umbrella. Isku day inaad dallad soo qaatid. It's a very wet. aad ayuu roobka u da'aa. Meel iska qoyan waaye. Waxaa laga wadaa it means it's all the day or rainy waaye. It's very dry in Sahara. aad ayay u tahay meel engegan oo aad u qalalan waaye in the Sahara. Saharaha aad ayay u tahay dry waaye. It doesn't often rain there. Badanaana ma ka da'o roob. A hurricane waa dabeelaha duufaanta zaa'idka waaye. Is a very strong wind. waa dabeel aad u xooggan waaye. A storm is when there is a strong wind and rain together. dabeesha iyo roobka markay isla socdaan waxaa loo yaqaanaa storm ayaa loo yaqaanaa. waa roob oo dabeelo wato. Okay, a thunderstorm goorme waaye is when there is a thunder, waa marka gugaca jiro, lightning biriq waxaas jiraan, rain roobna uu la socdo, and sometimes wind together. It means wixii dhan isku dar waaye. waa roob gugac wato, biriq la socoto, dabeelana wato, waxaa loo yaqaanaa thunderstorm ayaa loo yaqaanaa markaas. So ereyada waa ereyo oo cimilada inta badan muhiim ay tahay qofka inuu wax ka yaqaano markaa. Expressions, ereyadan sidee u isticmaali karnaa markaa? Sidee qof uga wareysan karnaa? Sidee qof ugu sheegi karnaa wax ku saabsan cimilada? Inuu maanta kulaal zaa'id jiro, inuu maanta qabow jiro, soo dhigi kartaa. Waxaan dhahna hadda fiiri, marka hore aan dhegeysano kadibna aan ka daba dhahna markaas. D. Expressions. It's a sunny day in Tokyo today, but it's cloudy in Hong Kong. It's foggy in Sydney and it's snowing. Or it's snowy in Moscow. It's raining in Barcelona, but the sun is shining in Granada. It's a lovely day. It's a horrible day, isn't it? What's the weather like in your country in June? It's usually warm and sunny. All right. aan soo fiirina markaa. Sidee qof u dhigi kartaa maanta waa maalin qorax? It's a sunny day in Tokyo today. Maanta Tokyo waa maalin qorax. But it's cloudy in Hong Kong. Laakiin magaalada oo Hong Kong waa meel maanta oo daruur ay ka jirto. It means roob ayaa soo diray waaye. It's foggy in Sydney. Sydney waa foggy, maanta ceeryaamo ayaa ka jirta. And it's snowing in Moscow. Moscowne maanta waxaa ka da'ayo baraf. It's snowy noo dhigi kartaa. It's snowing labadaba dhigi kartaa. It's raining in Barcelona. Barcelona roob ayaa ka da'aya maanta. It's snowing in Barcelona. But the sun is shining in Granada. Magaaladaas oo Granada loo yaqaanane, the sun is shining. Qorraxda aad ayay banaanka u taallaa way iftiimaysaa markaas. Marka way kala duwan tahay. Cimilada ka hor haddii maanta aad u fiican tahay oo qorrax zaa'id aysan jirin, roobna uusan da'ayn, jawigu iska degan yahay, waxaa dhici kartaa it's a lovely day. Maanta waa maalin aad loo jeclaysto, jawigu aad u fiican yahay waaye. It's a horrible day. Ka soo qaad digriga maanta aad ayuu u kululaa, let's say 40 degree ayuu tagay, huur ayaa jiray. Markaasoo kale waxaa dhici kartaa it's a horrible day, isn't it? Ka waran soo sax ma aha leedahay maanta cimilada zaa'id ahayd. So what's the weather like in your country in June? Qof su'aal isku weydiiyey, ni wadankiina cimiladiina waa sidee markii la joogo June? Because June ayaan rabaa inaan wadankiina imaado, so June cimiladiina waa sidee? So saan u weydiinaysaa markaa, what's the weather like in your country in June? Kadib qofka wuxuu dhahay firi, it's usually warm and sunny. Inta badan waa warm waaye, waa meel iska diiran waaye, and sunny qorrax ayaa iska jirta, xoogaa jawiga iska macquul waaye. Waxaan fiirin doonaa common mistakes. Qaadada ka badan ay galaan waxaa ka mid ah, we say it's windy, it's cloudy,
it's foggy inaan dhahno ma dhihi kartid ereyadaas ing ma raacsi kartid it's winding ma dhihi kartid it's raining caadi waaye okay laakiin it's winding macquul maaha waa la diidayaa marka ing la raacsi kuwaas okay tip marka waxaa la idin siinayaa talada maxay ku dhehaysaa watch the weather forecast in English on TV or online as often as you can telefishinka caadiga ah newska markuu dhamaado waxaa TV-yada intooda badan waxaa badanaa ku xijiyaan weather forecast barnaamij loo yaqaano oo ah saadaasha hawada ama cimilada laga sheekeeyaa tusaale waxay dhahayaan wadan hebel maanta digrigiisa kuleelkiisa intaas ayuu la ekaa dabeele ayaa jiray berrito waxaa la saadaalinayaa inuu roob di'i doono iyo waxyaabo noocaas kale ah so qofkii marka daawado BBC ama English ama CNN uu ka heli karaa barnaamijyada noocaas oo kale ah waxaan loo yaqaanaa weather forecast ama YouTube hataa gelin kartaa barnaamijyada noocaas oo kale YouTube ku qor weather forecast so areas qof kasto try to watch as much as you can haddii aad joogtaysid wax badan daawatid I'm sure area aad u fara badan ayaa ka baran doontaa oo ku saabsan the weather okay halkaas ayaan ku joojin doonaa insha Allah chapterkeena intaan ka gaari doona chapterkan kan xiga waxaan isku ognahay inaan kasoo shaqeyno exercise-ka iyo su'aalahaas kadibna aan xalin insha Allah see you insha Allah